kusoo dhawaada mar kale janaalkeena filinka ka hadlayna waa filin xiise leh oo la yiraahdo Beast soo baxay 2022 halkaas oo koox ugaasadayaal ay daban ugu dhigayaan libaaxyo markay arkaan libaaxyada ay cunayaan dabankii isla markiiba rasaas ay ku bilaabayaan saddex libaax kamid ah ay daliya hal libaax ayaa ka cararaya mid kamid ah ugaasadayaasha oo la yiraahdo Cabdullah ayaa maqlaya qaylada libaax wuxuuna go'aansanaa inuu raaco inta uu keenta sii galay ayuu arkaa raad libaax oo ka tagay wax yar kadib qaylo ayuu bilaabaa saaxiibkiis markuu urdo si uu badbaadiyo si lama filanayo daban ugu dhaca libaaxina waa uu weeraraa sheekadu waxay u wareegaysaa nin la yiraahdo Doornood iyo labadiisa gabdhood Nora iyo Mora kuwaas oo safar u yimid Afrika saaxiibkiis Martin ayaa soo dhaweynaya oo geenaya meel ay degaan gabdhaha waxaa loo sheegay inaysan jirin internet oo maalmood Nood wuxuu tusinaa gabdhihiisa sawiro hooyadood oo geeriyootay taasoo murugo ku dhisay habeenkii cashada Mora waxay ka xanaaqsaneed aabaheed iyadoo leh waqti inuu siin hooyadiis intii ay nooleed waxdii xigtay Martin wuxuu barayaa in lagu magacaabo Benji oo la socda dhaqdhaqaaqyada libaaxyada waxay arkeen libaaxyo Martin wuxuu hore u soo koriyay laba kamid ah libaaxyadaas markii ay yareeyeen laakiin waxay ogaadaan libaaxyada hooyadood inay dhaawacan tahay waxaana loo sheegaa inay ugaarsadayal ay dhaawaceen kuwaas oo xayawaanka dilay lacag dartood markay tagaan tuulo u dhow ogtooda waxay arkeen dhammaan dadkii tuulada oo la laayay Martin wuxuu u sheegay inuu libaax sameeyay falka hadda ku cusubtaa janaalka subscribe noo saar like noo dheh aad iyo aad u maasantahay intaas kadib Nora ayaa lunta iyagoo cabsi ka qaba inay raadiyaan ilaa ay maqleen qayladeeda Need wuxuu helaa iyadoo ag taagan lo iyo haweeney dhimatay markay dib ugu soo laabteen Martin wuxuu isku diyaa inuu gargaar u waco balse signal ma jiro wax yar kadib Martin wuxuu galiyaa keynta si uu wax ugu baaro laakiin si lama fanaan libaax ayaa gadaal ka soo weeraraya dhawaaqa rasaasta iyo cabsi gelinaya gabdhaha wuxuu ordaa keynta halkaas oo si toos ah u kulmay libaax aad u xanaaqsan wuxuuna bilaabaa inuu cararo isagoo naftiisa badbaadinayo Need wuxuu ordaa dhinaca gaariga si uu naftiisa u badbaadiyo libaax ayaa ka daba ordaya si uu u weeraro laakiin Nood uu ku guuleysanay ugu dambeyn inuu gaariga galo libaaxii kor ayuu gaariga ugu boodaya taasi oo cabsi weyn galiyay dhamaantood wuxuu isku diyaa inuu dhaqdhaqaajiyo gaariga Need wuxuu isku diyaa inuu gaariga dhaqaajiyo laakiin libaaxii lugta ayuu ka qabsanayaa xaaladda aad u kacsan awgeed meer ayaa steering ka qabanaysa Needna ugu dambeyn wuu ku tuuraa libaaxa nasiib daro gaarigii wuxuu ku dhacaa god intaa kadib Need wuxuu hubinayaa gabdhihiisa inay bad qabaan kadib banaanka ayuu oogaa si uu u arko libaaxa balse ma arko markuu isku dayo inuu gaariga mar kale shido Martin ayaa ka soo baxay raadiyaha Need wuxuu si degdeg ah u weydiinayaa xaaladiisa Martin wuxuu u sheegayaa inuu libaax si lama filaan u weeraray lugihiisana ay si xun u dhaawacan yihiin Need wuxuu ka walwal qabaa gabdhihiisa laakiin Martin wuxuu u xaqiijiyay inay bad qabaan labadiisa gabdhood wuxuu Need kula talinayaa inuu gaariga ku dhex jiraan ilaa ay gargaar u yimaado Need wuxuu Martin farayaa inuu mindi kuleeyo kadibna lugta dhaawaca saaro Martin wuu sameeyaa laakiin wax yar kadib qaylo xanuun leh ayuu ka maqlay raadiyaha Need wuxuu ballanqaadaa inuu u imaan doono laakiin Martin wuxuu u sheegayaa inuusan kaligiis ahayn libaax ayaa si toos u eeganaya isaga laakiin wuxuu u sheegaa Need inay galeen dhulkii libaaxa Need wuxuu bilaabayaa inuu qori raadiyo waxayna helayaan sanduuq ay ku jiraan qori Meer waxay sheegtaa inay taqaano sida qoriga la isugu keeno hore ay u aragtay Benji oo sameynaya iyagoo weli la hadlaya Martin ku soo baxaya saqafka gaariga si uu hareeraha u eego Nora waxay aragtaa libaaxii oo gadaal ka soo socdaan Need wuxuu isku diyaa inuu togto laakiin wuu siiga libaaxi ayaa ku boodaneed dhulka ku tuura Need wuxuu hoos ugu dhumataa gaariga si uu u badbaado laakiin libaaxa ayaa korka ka fuula gaariga markuu libaax hoos u dhigo oo socdo Need wuxuu si dhaqso leh u qaataa qoriga laakiin libaax mar kale ayuu weeraraa Nora ayaa si geesinimo leh libaax filaarta ugu tuurtay libaaxna wuu cararaa Need wuxuu ka soo baxaa gaariga hoostiisa isagoo dhaawacan libaaxa oo sii socda Mera waxay Martin ku soo celisaa gaariga Noodna wuxuu daaweeyaa lugtiisa dhaawacan Nora waxay weydiisaa haddii libaaxa suuxi doono Need wuxuu u sheegaa inay daawada dhowr saac shaqeyn karto laakiin Marta waxay aragtaa libaaxa oo weli meel u dhow jooga Need wuxuu ku amraa qof walba inuu deganaado habeenkii dambe Martin wuxuu soo miirsadaa wuxuuna weydiiyaa libaaxa Need wuxuu u sheegaa in daawadii ay si fiican u shaqeeyeen Martin wuxuu libaaxa sidan caadi ku maaha wuxuu rumaysan yahay inuu libaaxan u socdo argudisho kadibna markii ugaarsadayasha ay dileen xuquuskiisa intii ay hordayeen cod ay ka maqleen raadiyaha waxayna ogaadayaan inay soo socdaan ugaarsadayasha Need wuxuu gabdhaha ku yiraahdaa gaariga ha joogaan kadibna banaanka ayuu u baxaa si uu la hadlo ugaarsadayasha wuxuuna u sharaxaa inuu libaax weyn soo weeraray ayna rabaan inay meesha ka baxaan hogaamiyaha ugaarsadayasha oo la yiraahdo Case ayaa fahma inuu kaalo libaaxii habeen hore ee dileen qoyskiisa Case wuxuu ka dalbanaa 5 kun si uu caawiyo Nood si qasab ayuu u galanaa laakiin markii Case gaariga eego wuxuu arkaa Martin oo gudaha ku jira wuxuu bilaabay inuu xanaaqo mid kamid ayaa ogaanaya inuu Martin yahay ninka hortaga ugaarsadayasha isla ninkii dilay 3 kamid ragooda mid kamid ugaarsadayasha ayaa qabta Nora mid kalena wuxuu garaacaa Need libaax ayaa soo weeraray ugaarsadayasha Need si degdeg ayuu u celiyaan Nora gaariga Need wuxuu isku dayaa inuu qaato gaariga ugaarsada sidii ugu baxsadaan laakiin markuu gaariga gaaro wuxuu ogaanaa inuu furay maqan yahay wuxuu galay keenta si uu u raadiyo ninka furahaya halkaas ayuu ku arkaa libaax oo weli wareegaya markaas ayuu geedgidaas ku dhuntaa dhanka kale Mary waxay wacdaa Need laakiin codkaas wuxuu soo jiitaa libaaxa Need si degdeg ah u tuura qalabka si uu libaax isaga leexiyo Need wuxuu fuulaa geed libaaxiina hoostiisa ayuu ku wareegaa Need wuxuu arkaa mas
wuxuuna ku tuuraa libaaxa, taasoo ka nicisa oo ka cararisa. Fursaddaas ayuu ka faa'iidaystaa oo biyaha ay u galaa si uu ugu baxsado. Laakiin libaaxii mar kale ayuu ka soo booqdaa korkiisa. Nasiib wanaag, Noora ayaa garaacda hogga gaariga, taasoo libaaxa cabsi gelisa oo meesha ka bixisa. Nate ugu dambeyn wuxuu helaa ugaarsadihii furaha wad, wuxuuna qaataa furaha iyo qorigiisa. Martin wuxuu gabdhaha ku yiraahdaa hargixina, libaaxu wuu socdaa. Laakiin si lama filaan ayuu dib ugu soo laabtaa oo weeraraa. Martin wuxuu ku amraa gabdhaha inay gaariga ka baxaan. Gaariga god ayaa ku dhacay iyadoo libaaxa ay Martin gudaha ku jiraan. Martin wuxuu qarxinayaa gaariga isagoo naftiisa u reeyay libaax u dilo. Nate markuu uu maqlo qarax si degdeg ah ayuu ugu ordaa gabdhihiisa. Noora waxay sheegtaa inay gaarigii dhacay, Maryna oo libaaxii dhaawacay. Nate wuxuu go'aansadaa inuu gargaar raadiyo, wuxuuna gabdhaha u kaxeeyaa iskuulkii shalay ay joogeen. Wuxuuna Noora ku yiraahdaa inay walaasha la joogto intuu biyaha raadinayo. Si lama filaan ah, gabdhaha waxay ogaadaan galimaashooda. Ugu dambeyntii waxay wacayaan abood. Nate wuxuu rasaasiinaa libaaxii. Ugu dambeyn gabdhihii ayuu meel ku xirayaa. Nate rasaasta ayaa go'aysa. Aakhirkii libaaxii asaga ayaa food isdaraya. Libaax kale ayaa ka celinaya libaaxii Nate weeraray. Nasiib wanaag, Nate wuxuu ka casoo isbitaalka dhexdiisa yaal. Filimka intaas ugu yahay haddii aan ugu cusubto fan la jano soo iskara noo saar. Aad u mahadsantahay.